السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوضا ميل والبو aad naga daawanayso ku soo dhawaaw sheekadii jar iska xorkii yaraa qaybteedii koobaad qaybta koowaad ee sheekada waxay ku bilaabmaysaa Anwar wuxuu ku fadhiyay kursi gaaban oo hoos yaala geed weyn oo ku yaala guriga aabihiis waxaanu dhabta ku haysta buug yar oo aad u qurux badan oo maalin hore saaxiibkiis Cali hadiyad ugu keenay inkastoo oo buugga dhabtiisa ku kala furnaa hase yeeshee Anwar ma akhrinaynin maxaa yeelay hamigiisa iyo qobkiisaba waxay ku maqnaayeen meel fog oo aanu wiligii soo jeed iyo riyo midna oosan ku arag meelahaas oo ka sawirtay quruxdooda iyo muuqsamaantooda maankiisa Anwar wuxuu ahaa wiil yar oo Turki ah kana mid ah dadka dega magaalada Istanbul inkastoo Anwar da'diisu aysan ka weynayn 14 sano wuxuu ahaa wiil yar oo jariska xor ah aadna u dhiiran oo jecel dalmarka iyo socdaalka dib iyo adeegna u mudan jiray baqdin iyo foojignaan la'aan si oo kolba meel cusub u soo arko sidaa darteed Anwar wuxuu booqday dhul badan dhex marayna wadamo badan kuwaas oo dadka dega ee dhulkaba wax badan ka ogaaday kana bartay in badan ayuu wiilka yari dhul aan wiil inan yar oo da'diisa oo kala ah oo san tagay sidaas ha jirtee haddana marna kama uusan dhargin kolka iyo xiisaha uu hayay socdaalka iyo dhulmaridda jaceelkoodana kama aysan dhammaan Anwar waxa uu fududeeyay inuu hamigiisa gaaro aabihiis oo maamulo ka ahaa shirkad weyn oo leh diyaaradaha la raaco marka waxaa dhici jirtay inuu Anwar raaci jiray wadayaasha diyuuradaha aabihii maamulo meel low iyo meel fog hadba meeshii aadayaan wuxuuna ka soo noqon jiray socdaallada isaga oo riyaaqsan kuna faanaya waxa uu aqoon cusub iyo warar ka soo kororsaday dal iyo dadba wuxuu soo arkay intaana waxa uu dheeraa isaga oo nafahantiisa noqdo duuliye daran kuna farsamo bartay saacado badan wadida diyuuradaha isaga oo inta ay la socdaan farsamo yaqaanada shirkadda oo aabihii maamulaha ka yahay haddaba waqtiga aan ka hadlayna muddo yar ka hor ayaa waxay Anwar isbarteen inaan la yiraahdo Cali oo ah inanka buugga ugu keenay hadiyada Anwar iyo Cali midba midka kale ayuu dabcigiisii jeclaystay kalgacal iyo saaxiibtinimo adagna way dhaxmartay marka waxa dhacday inay ka ishaleelaan waqtigooda wada qaataan haday sheeko tahay iyo haday ciyaar tahayba iyo haday tahay tamashlo xiriirkoodii saaxiibtinimo wuxuu qaatay qoto dheer oo waxay noqdeen dad walaalo oo kala ah Cali haddaba muusan ahayn Turki sida Anwar oo kale wuxuu ahaa wiil asalkiisa oo yahay dadka wadamada adduunka ka xiga waqooyi sidaana wuxuu ka yimid dhulka qabowga ku caan baxay halkaas oo ah meel barafku dhulka korkiisa qariya sanadka oo dhan cadceeduna ka qarsoon tahay bilo badan diirimaad la'aan iyo iftiin la'aan habeen iyo maalinta aan la kala garanayn Cali aabihiis ayaa muddo hore ku soo guuray dhulkan degayna magaalada Istanbul oo ah magaalo ku taala wadanka Turkiga halkaas oo uu noqotay wadankiisii labaad hase ahaatee marnaba muusan ilaawin dalkiisii iyo afkiisii iyo hidihii dhaqankii dadkiisa sidaas leeg ay wiilkiisii Cali oo u yaqaan afka iskimoga kusiyaag sidii aabihii ayuuna marna ilaawin dhaqanka iyo hidaha dalkiisa hooyo iyo dadkiisa markii Anwar isbarteena wuxuu aad ugu sheekeyn jiray dalkiisa fog ee dadkiisuna ku nool yihiin guryo laga dhex jibiyay baraf cunaana hilibka bahalka la yiraahdo dhubuhu waa xayawaan weyn oo qiyaastii la eg jeerta wadankeena dhogor adag oo badanna leh intaas waxay noogu dhamaaday qaybtii koowaad ee sheekadii jar iska xorkii yaraa